waxaan joognaa deegaan dhowr qaybteeda agabka nadaafadda oo ku taala magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska Albaraka ee degmada Hodan qaybtan aan ku sugannahay waxa yaala agabkii loogu talagalay nadaafad oo dhan waxyaabo muhiim oo adiga ku anfacaya ayaa mid ku tusaya oo nadaafadda ku saabsan oo gurigaaga ama meel kasta oo markaasi aad ku sugan tahay u baahan in aad ku nadiifiso shaambadana idinkaga bilaabayaa agabka nadaafadda shaambadani waxa loogu talagalay in mutuleel lagu dhaqo mutuleel ayu nooc ayaad ku dhaqaysaa mutuleelka markaasi wuxuu ka qaadayaa caraf iyo dhaldhalaal waa shaambo markaasi gaar u ah mutuleelka in markaasi lagu nadiifiyo waxaad ka helaysaa deegaan dhowr gurigaaga adigoo joogto xitaa waa soo dalban kartaa delivery ayaa lagugu keenayaa midaan aan gacanta ku hayo waa kiimiko loogu talagalay in markaasi musqulaha mutuleelka oo kale markii shamiitada ay kaaga dhigto aad ku fujisid markuu gurigu uu cusub yahay oo kale oo guriga ama shamiito ama rinjiga oo kale oo mutuleelka kaaga dhago ayaad ku fujin kartaa waa kiimiko loogu talagalay markaasi mutuleelka alaabaha waxyaabaha ku dhago ee wasaqda ah in lagu fujiyo ayaa loogu talagalay kiimikadaana sidoo kale deegaan dhowr ayaa idin keentay oo aad ka heli kartaa bowl cleaner kan oo kale waa flash isagana waxa loo isticmaalaa tunjiga waji dhaqa oo kale oo musqusha ku yaal oo kale iyo braagaha waa flash loogu talagalay waxyaabaha wasaqda ama jeermiska in uu dilo waa flash markaasi musqusha iyo waxyaabaha kale braagaha iyo waxyaabahaas loogu talagalay deegaan dhowr ayaa idin haysa shaambadana xagga sare idinkaga muuqata waa shaambo jeermis dila ah markaas loogu talagalay in lagu nadiifiyo saalada iyo meelaha dhaadheer ayaa loogu talagalay shaambadani deegaan dhowr ayaana idin haysa fresh bleach waxa loogu talagalay in lagu dhaqo dharka cadcad ee wasaq ku dhagtay oo laga fujin waaye midkan ayaa ka fujinaya oo loogu talagalay sidoo kale jeermiska ayuuna ka dilayaa fresh shaambadani fresh shaambo lahayo waxa loogu talagalay lagu carfiyo darbiyada iyo mutuleelada special waxa aad ugu fiican tahay in guryaha markay cusub yihiin oo kale nadiifiyo aad ay u carfayaan guryaha duuga ah oo duqda oo kale markii dib u habeen lagu sameeyo kale hadii lagu dhaqo aad ay u carfaysaa oo darbiyada iyo mutuleelka ayaa loogu talagalay glass cleaner kan waa wada garanaysaan waxa lagu nadiifiyaa ayu miraayad miraayadaha albaabaha miraayadaha sariiraha jiifafka armaajooyinka waxyaabahaas oo kale ayuu clean kaaga dhigayaa markii aad ku nadiifisid kaale iska arag si qurux badan aad iskaga dhex arkaysaa intaasi oo idin sheego adeega iyo ka badan ayaad ka helaysaa deegaan dhowr magaca ka garta waxyaabaha lagu gado waxaa ka mid ah bahalaha loogu talagalay in gacmaha lagu nadiifiyo carafna kaaga dhigaayo oo gacmaha wasaqda jeermiskii kaaga dilaayo kuna carfinaayo sidoo kale carfisooyinkii guryaha unsiyadii markaas guriga lagu carfinayay iyo sidoo kale markii aad qashinka iska xaaqdo waxyaabihii aad ku gureysay geedihii qashinka iskaga fogeynaysa banaanka aad dhigaysay qalabkii oo dhan ayaa idin haysaa deegaan dhowr soo gaara intaa idin sheegay in ka badan ayaad ka helaysaa markii aad halkaa timaado magacaygu waa xasan dahar cali madaxa suuqgeynta kambaniga deegaan dhowr waxaan u mahad celinayaa ganacsi TV booqashada ay maanta nagu soo booqdeen xarunta xafiiska deegaan dhowr cleaning service qaybtiis waxaan ku raahdaa productiga ama iibinta agabka nadaafadda deegaan dhowr waa kambani ka shaqeeya arrimaha nadaafadda iyo fayadhowrka bulshada kambanigu wuxuu dalka ku soo biiray 2016 waxa uuna ka shaqeeyaa dhammaan sida dalka guud ahaan wuxuu ka shaqeeyaa dhammaan gobollada dalka Soomaaliyeed waxa uu ka shaqo bilaabay magaalada Muqdisho serviceda kambanigu uu bixiyo waxaa ka mid ah iibinta agabka nadaafadda oo ah productiga shaqaalaha nadaafadda u fududeyn lahaa inay gutaan waajibaadkooda shaqo ama imkaaniyaadkii shaqaalaha u fududeyn lahaa shaqadoodii nadaafadda kambanigu waa kambaniga ugu weyn magaalada Muqdisho ku yaala ee iibiya productiga ama agabka nadaafadda loo isticmaalo qaybihiisa kala duwan hadday ahaan lahayd kiimikooyinka hadday ahaan lahaayeen carfisooyinka hadday ahaan lahayd air freshta oo ah maxaan ku rahdaa carfisooyin loo isticmaalo uduga sidoo kale kambaniga adeegyada kale uu bixiyo waxaa ka mid ah bixinta shaqaalaha nadaafadda shaqaale nadaafadeed oo tababaran oo haykalkooda caafimaad iyo midkooda ammaan u dhammaystiran yahay kambaniga sidoo kale adeegyada uu bixiyo waxaa ka mid ah tababarida shaqaalaha nadaafadda kambanigu wuxuu tababaraa shaqaale nadaafadeed waxaa u jooga macallimiin Soomaali iyo ajaanib isugu jira oo ka maxaan ku rahdaa caawiya shaqaalaha inay noqdaan shaqaalaha modern ah halkay ahaan jireen qaabkii u shaqeyn jireen ay ahayd qaab traditional ah waxaan siinaa marka duruus dhammaystiran oo syllabus leh maxaan ku rahdaa macahad lagu barto tababarada nadaafadda
yuu kambaniga bixiyaa oo adeegyada oo bixiya qayb ka ah. sidoo kale kambaniga deegaan dhowr adeegyada oo bixiya waxaa ka mid ah la dagaalanka cayayaanka oo aad muhiim u ah bulshada muhiim ugu ah qaybihiisa kala duwan. kambanigu wuxuu dalka keenay mashiino casri ah oo loola dagaalamayo maxaan ku rahaa cayayaanadaas iyo dawooyinkii ku habboonaa oo hadda aan dhex taagannahay qaybtii suuqa ahayd ee productkii lagu iibinayay cayayaan walba iyo dawadii lagula dagaalami lahaa iyo mashiinkii lagu dabarjari lahaa dalkan keennay. kambaniga sidoo kale deegaan dhowr adeegyada bixiya waxaa ka mid ah beerista dhirta, jarista iyo xanaaneynteeda qaybay ka tahay. kambaniga wuxuu dalka keenay wiishash aad u waaweyn oo gaaraya il maxaan ku rahdaa ku dhawaad guri 9 biyaan 10 biyaan ah elevator gaarayaan keennay oo lagu nadiifinayo guud ahaan. waan kaga mahad celinaynaa ganacsi TV booqashada aan soo booqateen waana ku soo dhawaanaysaan xafiiska kambaniga deegaan dhowr qaybta suuqgeynta.